suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay warar ka sheegaya in la iibinayo isla markaana la balooreenayo madaarka Hargeysa oo laga iibinayo cid gaar ah waxaanu suldaanku soo dhaweeyay isla markaana ka difaacay xukuumadda eedaha loo soo jeedinayo iyo waliba ganacsade reer Soomaaliland oo hotel casri ah ka hirgelin doona madaarka Hargeysa Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir oo waqtigan iyo hawlo shaqo u jooga xarunta magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la soo xiriiray TV-ga Universal ayaa isagu wararkaasi ku sheegay waxba kama jiraan isla markaana bulshada deegaanada koonfurta magaalada Hargeysa ugu baaqay inaanay maqlin cuqaasha ugu baaqasa in la dhigo mudaharaad lagaga soo horjeedo hotelkaasi lagu maalgashanayo madaarka Hargeysa sidaan anigu qabo anoon cidna tixraacin marka ugu horeysa madaarka Hargeysa dadku wixii ay dawladda siiyeen mooyee wax cid baloodhaysatay miiska degtay ma ogaanu dadka la siiyey maanta hotelkan airportka cid kastaba ku faraxday waayo nin muwaadin reer Soomaaliland waliba beesha kamida beesha airportka degta kamida ee la siiyey taasina ama ku ambalay wasiirka dawladda hawada wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka hawlaha guud halka wixii ka dhici lahaa ninkaas ku kala furtay waadi ku mahadsan dadaalka fiican ay ku kala furtay beesha haddii aan maqlay cid baa ka hadashay cidaasina waxay inay ku ambaliyeysay inay hadal iyo waata kale ka samayso ma jeclaysan beesha waxaan farayaa waxay mudaharaad laga dhigo wax mudaharaad lagu dhigo marka wax ma kugu yimaadaan laakiin de markay wax wanaagsan lagu garto ee abaalmarin lagu siiyo dee in lagu hambaliyeeyo mooyee xukuumaddu mudaharaad ugu jeediyo uma arkaanu Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.